xaflad siyaar sare loo soo agaasimay laguna caleemay saaraya Aqal Yaasin Ugaas Maxamuud Indhayare ayaa waxay ka dhacday deegaanka Malaasle ee gobolka Mudug waxaana ka soo qayb galay wasiirro iyo xildhibaano ka tirsan Puntland aqoon-yahano dhaqaatiir qurbajoog haween iyo martisheef ka kala yimid gobolada dalka ugu horeyntii waxaa munaasabada ka hadlay soo gudbiyay caaqilka Nabadoon Xirsi Faarax Cigaal Nabadoon Maxamed Cabdullaahi Xaashi Nabadoon Bashiir Maxamuud Dalmar iyo Cabdiqaadir Faarax Xirsi Kuweyd oo ku hadlayay afka aqoon-yahanada gobolka Mudug waxaan ku soo dhaweynayaa caaqilka Yaasin محمود النيرة انت شوفتانا حتى وهو دورنا مانتا دورشوا عاقلك وحاكمنا الى مهد ان ودانين نلا دورتان قد بسانين او دورنا waxaan soo dhaweynaynaa la dooranaynaa si aan baqaadaynaa meesha aan u kaleennay aan ka wadanaynaa haddii halkaan soo gaarsiiseen sida aad noogu wareejiseen aan ula wareegaynaa aynuna isku mid u nahay reer mahadna u gaarsiinaynaa caaqil Yaasiin محمود النيرة مر لوادي مر صدحابة عاقلك وسود ويننا وهدي لا يكون رؤيا ونصيب بريتارينا شغلنا هذا واحد بنقرأ هذا وحي كدم بيا مركز غير مهد إلى إسلام هدي ربي موسعونينا إن شاء الله وعاقلك ونولد دونا إلا غير مهد وولد دونا إلا إسلام وولد دونا إلا عمر محمود وولد دونا إلا مشرتين وولد دونا لا دورور وولدونا إن شاء الله ودي لا يركيه وحنا رجلينا شيء إنه هراء أو هراء والسماء هذا هذا وعاينا إنه الشريعة الإسلام كخيرك لوه جاميو إنه مرحنا ونهم دونا إن شاء الله وعاقل معهم عاقل ياسين محمود النيرة وانين بالنيرة وانين متعلنا وانين وايا أرجع وانين مسؤولة ومحوها هيدا قال كعيور دن إنون مورسي وكرنتها ميل كست إنو جيسي وقولي كستوى إفكا ويا شيء نكا إنو معمولو إنو هيوية وحنا كرتشينينا باشا غير مهد عمر محمود إنو نقضو إفتين كاسو كرا أيان إلهي ورتشينينا لا ذيك رعبان أيانا عافي مالده ديغا عريب دنبالكي سجانا ذي إله حسكيو للكارو علامي سين وانينو انتامين كورينا يهذير عافي ماد كوار وعدل كان كوبرينا يعلم dhinaca kale xildhibaan Shaa'ur Xuseen Guure iyo wasiirka duurjoogta iyo dalxiiska dawladda Puntland Ali Cabdullaahi Warsame ayaa iyaguna si wada jir ah ducaa iyo dardaaran u soo jeediyay caaqilka maanta la caleema saaray qofka hadii la doorto xil loo dhiibo waa in looga dambeeyaa masiirka waa in cidda uu wax u igmado ay la shaqaysaa maxaa yeelay qof kaligiis wax ma qaban karo garbo u baahan yahay gabdha iyo ragba in lala shaqeeyo u baahan yahay asaga waxaan kula dardaarmayaa samir iyo dulqaad umad badan baa mas'uuliyaddeeda qaatay ilaahay subxaanahu wa tacaala cabsidiisa ku xasuusno ilaahayna kugu asturo waxaan rabaa anigoo ku hadlaya afka dawladda inaan sidoo kale ku dhawaaqo inaanu soo dhaweynayno raallina ka nahay caleemasaarka caaqilka Aqal Yaasiin Ugaas Maxamuud Indhayare waxaan leenahay dhaqanku weligiisba wuxuu ahaa tiir muhiim ah marka laga eego dadkeena dawladnimadeena iyo difaaca intaba waxaan u malaynayaa waqti kaaga haboon oo aad ku soo aadid baahiyaha maanta dalkeena ka jira adigoon ognahay kartidaada aqoontaada hufnaantaada intaba iyo khibradaada waxaan u malaynayaa inaysan jirinin ugu dambeyntii waxaa munaasabada ka hadlay Aqal Yaasin Ugaas Maxamuud Indhayare wuxuuna u mahadceliyay dadkii soo doortay sidoo kalena wuxuu u ballan qaaday inuu ku dhaqi doono kitaabka Quraanka Kariimka ah idinka mahadnaqayaa sida kalsoonida leh sida aaminaada leh ee aad igu xusheen aad igu doorateen xilka kan waxaan hortiina ka ballan qaadayaa haddii ilaahay idmo inta tabartay ah ilaahay intuu iga waafajiyo sidaad markaanti ka wada tihiin ee halkaa kitaabka jaamaca igu dhiibteen waxaan ballan qaadayaa ilaahay hortiis iyo hortiinaba inta awoodayda inaan ku dadaalo in aan ku maamulo inta aad igu doorateen oo idinku aad ka tihiin markaantiga kitaabka jaamaca xafladan oo ahayd xaflad siyaar sare loo soo diyaariyay ayaa waxay ku soo dhamaatay jawi degan Mawlid Maxamed Kooshin warbaahinta SBC degmada Buurtinle